وعشا شرف لو طلق لأنه سود ويو سياسي أحمد شيرة أنا رادة أحمد شيرة محمد أو نقصو بقضي وطن كاسي UK أما بريطين مركانا وتاجي هاي صعب كارلو كلمة يهدير بقدره أحمد شيرة محمد وسياسي كتر سنة قربشوك قل مدوغة إسلام كاسينا نغصو باخذي ودن كاسي بريتين أما UK حفلتنا وحلو ترى لو سودا ويا سوى إسلام كاسينا أشرحنا مدحوين لماذا ما من الجولات كأما دول الجولات كقل مدوغة لبضة كل يصدق يتوقع حفلتنا أو قبله ترى قبلها قل مدوغة مرة ولا واحد تجتنا قبل حل بالشدة waxaana la rumaysan yahay in ay yihiin lafdhabarka bulsho kasta ee gabdhaha Soomaaliyeed waxa tusaale kaliya waxaan ugu filan dhibka iyo dhibaatada ay ku jiraan gabdhaha Soomaaliyeed ee ku sugan waddanka Soomaaliya meel waliba ay joogaan runtii waxay qayb libaax leh kaga jiraan bulshada hase ahaatee maanta waxay garteen iskuna soo duween xafladan qiimaha badan si ay u soo dhaweeyaan walaalkooda ayagoo ku sharfay casho sharaftaan ku soo dhawow ayaan ku leenahay Axmed Shire xafladan maadaama dad islaam aan nahay isla markaasina aanu doonayno in aan furano xafladeena waxaanu ugu horeyn baa ku furi doonaa aayadaha Qur'aanka Kariimka ah waxaana u yeerayaa Cali oo sahal si halkaani uu aayadaha Qur'aanka Kariimka noogu soo jeediyo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم هذه يوم سيهي علي أو سهل أو رحمه أيضا القرآن الكريم كالفاتحة أو أم القرآن أجري حسنا الله كسيو أنا كنا دعاء سي الله نجا أقبله يا أيضا القرآن الكريم كوي كعمل فلا الله نجا دقو حفلة ديني أيام نبذكر دونا ربي هدو قدره أنا خطبة بلنا أيام لقى جديد دونا أو واحد شوغان نبضونا يوليبه مرت الشرف لو قلت لك إن أي هل كان كهلان حساهات حفلة واحد مفرية خضراء أوري بسم الله الرحمن الرحيم وإذ السلامي مدن يالي مروي ولا لياش قصوا قيب قلي سودويتا أحمد شيرة isaga iskimbari doona waa nin aftahana waana ninka ugu cadcad jaaliyada Ingiriiska ee galmudug waana haliyay soo bixi doona 2013 doorashada cusub oo galmudug soo dhawow waxaan ku soo dhaweynayaa nin aan suldaannimada isku haysano waa Maxamuud Ducaale السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعدي وحن تعال هاي ولالك يا أحمد شيرة ومدو باليحوغا أنا لتشوقي نجانا يمد ودك إنجليز ك إن أنا عاوي حفلة تن قيمة له كسر دوينه سلام يردر دارنا ودي بنو جالية دي إنجليز كوكيمد آدي بان ugu faraxsanahay maashigu noo yimid
muddadu nala joogayna waxyaabo badan baan ka faa'iidaysanay waxaanan aad iyo aad u garab taagannahay dad Axmed Shire oo kale ah hadday maanta isku soo taagaan doorashada soo socota ilaahay dowladnimada Galmudug waa waxyaabaha aan tabanaynay waxaan naga batay ilaa iyo 1960 dadkii taagnaa dhalinyarada oo soo ka mid yahay waa soo dhaweynaynaa waana support gareynaynaa waxa kaliya oo caaway anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda Galmudug ee Minnesota safiirkii Galmudugna uu joogo asaga dhinaca dawladda ku hadli doona laakiin dhinaca jaaliyadda waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa kalgacayl rayn farxad sagootina caawa meeshaan isugu nimid inaan walaalkeen aan sii sagootino barashadii ficneed oo dhaxmartana aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay iyo waxyaabihii aan ka faa'iideysanay waqtigii uu joogay sidaas oo kale waxaan ka doonaynaa salaan kalgacal iyo walaaltinimada inaad naga gaarsiisid dhammaan jaaliyadda Ingiriiska oo ka timid khudbadu waa noo socon doontaa intaan kuma eka cashadiina waa dhowdahay waan cuni doonaa khudbadeedii runta ahayd waa ii hartay waa ii dambaysaa laakiin hadda waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo laba kelmad inuu yiraahdo safiirka Cabdi Yuusuf ku soo dhawaad Cabdi Madoobe program Galmudug maanta waxaan u maleynayaa xafladda waxa dhigtay gabdhaha ayagana program ka wata aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin jaaliyadda dhanna kullay xaq ayaga maaragtay kullay u taagan maanta ayaga soo qabanqaabiyay programka ayagana laga rabaa inay kullay ka hadlaan aad iyo aad aan ugu mahadsantihiin si sharafta la ugu soo qayb gasheen farxad weyn ay tahay inaan Axmed Shire aan maaragtay soo dhaweyntiisii iyo si socodkiisii maaragtay aan ka qayb qaato waa haliyey weyn oo maaragtay wax badan maaragtay arrimaha Galmudug iyo siyaasadda Soomaalida dhanba dadka ugu firfircoon inuu yahay Axmed Shire waan ogahay marka waa ku mahadsantihiin ku soo dhawaada walaalaha dhamaantiin khayr baan idin rajaynaa waxaan xil aan ka qabto 2012 ama 2012 dhamaadkiisa 13 whatever markii lagu kala baxo hadda arrinta ka socota Galmudug walaalayaal haddii aan laba eray iraahdo horta ilaahay ayaa mahad iska leh awalan naga dhigay dad bini aadama ثانيا naga dhigay dad muslima ثالثا anaga wan family ah awood noo siiyaa waxa kale aan isku imaano oo aan ku soo dhaweyno walaalkeen Axmed Shire Maxamed waxaan u mahadnaqayaa dhammaan marwooyinka familiga oo degan magaalada Minneapolis noona suurta galiyay xafladan qiimaha leh abaabulkeeda iyo ka qayb qaadashadeeda iyo habeynteeda marka waad mahadsantihiin hooyooyin walaalayaal adeerayaal aad baad u mahadsantihiin xafladan qiimaha leh ee aad soo abaabushay hadda muusigeeda aan maqlayseen ayaa idin ku soo socota Raxmad Ruuxi ayaana soo gaarsiin doontaa haddii Rabbi qadaro kadibna waa la cashayn doonaa intaas kadib khudbadii ayaa dib u bilaabi doonaa Rabbi haduu idin صاحبي سكهيا صعبك أكتمي سلام عليكم صاحبي سمكيا صعبك أكتمي أحمد صدو
أحمد ومدني معاه مجدي لو بحي نفسي يوم قام محسوب لو نقضى مغعي يعود أنا تهاد أحمد بالمدبات ويا قلمودك دها أحمد قولد وطني قصص الصومالي اللي كل شيء ساري بس I know that I can't know.
tahay mar kale waxaan filayaa in aad ka qayb qaadatay xafladdaani sharafta badan intaasi aan ku dhaafno heestaasi markaana waxaan guud ahaanba u mahadcelinayaa dhammaan inta soo qaban qaadisay xafladdaani sharafta leh ee markaasi lagu soo dhaweynayay musharaxa Axmed Shire waxaana filayaa inuu naga gudoomi doono soo dhaweyntaasi iyo weliba sagootintaasi waxaan kaloo halkan uga mahadcelinayaa maamulka iyo shaqaalaha Safari Restaurant oo suurtageliyey in xafladdan halkan lagu qabto oo isla markaasina holkan weyn diyaariyey waxaana rajaynayaa in aad xafladaha ku qabsan doontaan aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin dhammaan inta kor aan kusoo xusay dhinacii barnaamijyada ayaanu dib ugu laabanaynaa raalli ahaada waa maxamuud ducaale salaad maaha waxaan caawa xafladda isugu nimid waxa weeye inaan sagootino walaalkeen Axmed Shire oo nooga yimid dalka Ingiriiska xafladdan quruxda badan gabdhihii soo abaabulay mahad gaar ah ayay leeyihiin boqolkiiba boqol waxaan filayaa maalmahan dambe ama sanooyinkaanba gabdhaha ayaa raggii ka gacan sarreeya oo dadkii isku keenaya qadro xafladdan xafladdii ka horreysay oo meesha isugu nimid waxaanu ballan qaadnay in shaqo aada u ballaaran aan gallo taasna dib ayaan ka soo sheegi doonaa caaway xafladda qiimaheedu waxa weeye walaalkeen Axmed Shire inaan sagootino waxaan leeyahay hadal badani hanima buuxsho dhammaan waad u jeedaa dadka sharafta loo meeshaan isugu yimid anigoo magaca jaaliyadda ku hadlaya mar labaad waxaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka walaalkeen Axmed Shire Maxamed Cumar ku soo dhawaad Axmed Shire بسم الله الرحمن الرحيم هل هو إيجا سلام مركورة شرفت كرامة كم وقته بعض السبورت بعض الميديا بعض الفنانين لما أنتم عليكم السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده أنت أكوها كيو سلامتا أرديسو قد بيي mahad waxaa iska leh ilaahayga Soomaalida naga dhigay ilaahayga muslimka naga dhigay quruxda iyo karaamada la siiyay nabadda iyo kasaabada la siiyay ilaahayga waa u mahad celinaya oo mahad ilaahay baale mar saddexaad mahad ilaahay baale munaa waxaa leh sharaf iyo amaan iyo haddii ilaahay qadarayo duco intii xafladda tan qaban qaabisay isu soo dibariday sida quruxda badan leh aad arkaysaan u habaysay inta ayagu waqtigooda ayaguna soo siiyay anoo garan kara qabowga jira anoo garan kara meelaha laga yimid anoo garan kara haddii alla qadarayo fogaanta iyo xilliga aan ku jirno intaasoo dhan markaan isku soo xooriyo waxay mudan yihiin sharaf karaamo iyo ammaan dheeri ah iyo duco aan ku lari doono waa isharfeen waana uga mahad celinayaa laakiin haatan qorshahayga weli ma soo gudbin mana soo shaac bixin ilaahay baa ogsay noqon doonto ayagu way maasan yihiin anigu saada musharax ma taagin arrinkaasu dhibkii nagu dhacay bedelkeedii waxa weeye ilaahay wayna siiyey waxay mudan tahay oo aan hubaa inta halkaan fadhida inta ka maqan in qof waliba oo dinta haysa ay tahay dalkii iyo deegaankii oo ku dhashay asagoo nabada oo asxaab abti ilma abti iyo saaxiib iyo deegaan iyo shaqaale iyo iskuul iyo ciyaal xaafad iyo dhalinyaro iyo hooyo iyo waalid ayuu sidii la ku yaqiinay gacmaha isku haysta inta cibrigoodu gaaro in laga shaqeeyo oo loo gurmado haddaynu nahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto qaab maamuleedka
haddii ilaahay ku row yahay aan haatan magaciisa ku hadlaayo iyo kuwa kaloo la mida duruufaha jira awgood ayay noqotay sidii laga badi waayay in la yeelo hase ahaatee waxaa ka ficnaan lahayd iyadoo galabtay ama caawayto ay arrinku noqdo dowladda soomaaliyeed iyo qarnimada soomaaliyeed oo laisku raalli isku yahay oo midaysan oo calanka dushooda ka babanaya maxaan ku waxaan mar rabo inaan haddii ilaahay ku idmaayo maadaama aan marti ahay ka imid dalka UK jaaliyadda UK anoo magacooda ku hadlaaya tan galmudug tan soomaalida iyo tan isjecel in soomaali midoodaba waxay keega sidaa salaan walaaltinimo oo guud ahaaneed oo sharaf iyo karaamo leh waxaan rabaa inaan dusha isaga taago 3 qodob oo aan mid walba aan wax yar ka taabto mid waxa weeyaan horumarka siyaasadeed ee galmudug midna waxa weeyaan hadafka siyaasadeed ee galmudug midna waxa weeyaan khilaafka nuxnuxeed ee galmudug iyo aragtida aan ka qabo axmed sharaxan horumarka siyaasadeed dadka Soomaaliyeed oo dhani waxa weeyaan waxay maanta u xaqal taagayaan in talisulaad la muujiyo in la isku soo aruuriyo Soomaalida kala taasanaanteeda habceeda iyo qorshe xumadeeda waxaan u maleynayaa maanta geeska walba ay tahay waa markii ugu roonayd muddo dhowr iyo 20 sano ah rajada Soomaalidu ay qabto shirkii ugu dambeeyay lagu qabtay magaalada Garowe waa markii koowaad dad Soomaali ah oo aan lagu dhex jirin go'aan ayagu ay isku raacsan yihiin ay meel ka soo wada saaraan galmudugna waxay ka mid ahayd laf dhabarta sirkaas waxaan u rajeynayaa inuu noqdo mid si taabagala oo ujeedada la gaaro horumarka haddaan reer galmudugnahay ee siyaasadda lagu soo kornay halkaas ayaan ka garan kartaan mar haddii miiska wada hadallada ee Soomaalida aanu nahay haddii 3 qof isku timaado xubin ka mid ah ka mid nahay waa horumar weyn marka loo eego da'da aan jirno oo kal dhaweyd loo dabaaldegayo 5 sano maamulada laga horeeyay 20 sano iyo ka badan ay jiraan haatan aan miiska wada hadallada iyo ayaka talinta Soomaaliya aan si siman uga wada hadlayno waxay ka mid tahay guulaha iyo horumarka la gaaray annagoo rajeynayno Soomaaliya dhow la gaaro haddaan intaa ku soo dabro hadafka iyaga siyaasadeed hore looga hadlay marar badan baa laga hadlay ma rabo inaan badiyo hadafka siyaasadeed waxaan u taagannahay oo taageersannahay oo garab taagannahay oo aan si walba ula shaqeynayna dowladda federaalka ah ee halka dalka talisa ee madaxweynaha ka yahay Sheekh Shariif Sheekh Axmed si buuxda ayay galmudug u taageersan tahay si toos ah si dadban hadafkii waxa weeye inaynu aruurino soo dhaweyno Soomaalidu meel walba ay joogto oo ay noqoto meel aan wixii tabartayada aan ku soo aruurino deegaanka galmudugna wuxuu u taagan yahay dadka Soomaalida ee yimaada inaan ku ahaynin qaxooti ee yihiin dal iyo dad jooga dadkoodii la jooga oo la walaala siyaasad ahaan dhaqan ahaan nolol ahaan qaab ahaan حدود حماسة ديسن أو قبيلة ديسن أو عنصرية ديسن أو دنقار اللي قليه هاي ومسا بيسنين واحد نصا بيسن هاي إن عالك بلوغ لها جحمي عن سوء نيادة ونيادة سيدة وحوقات الله كانت دول بلبلنو حروتي أول بلغت هاي قلمونك لفظات كان inta haddaan ayadana qodobkaas aan ka dul kiciyo hadafkayga aan u laabto fulixantiisa ma mooga waxaan aaminsanahay in la yaro dareensan yahay maalmihii dambe in khilaaf siyaasadeed uu jiray xagga galmudug waxaa su-aashu markay noqonaysaa sheekada quruxda badan aan ka soo sheekeeyey ee hadafkayga ah ee odhanaya Soomaalidu waa isku kaaya mid ee odhanaya Soomaalida nu soo dhaweynayna ee odhanaya dalkii iyo dadkii la jecel naga haysa ee odhanaya
dalka iyo dadku waa inay noqdaan sidii nala ku yaqiinay haddana maxaa khilaafka hoosaadka iyo nuxnuxda iyo isriix keenay taas waxaan isleeyahay wax badan ku sii talax tagi maayo laakiin waxa la yiri sanad barwaaqo ah oo roob badan dhulka carsanka ku da'ayo dadka qaar ba carsanka iyo waa dhul barwaaqada hadda haysano oo baadiyan u bedelayo oo xooluhu dhaleen oo geelu dhalayo nabad la haysto oo ayaa carruur iyo oday iyo caano iyo ka dhargo aad u cayilan oday waa inay cayilan yahay ayaa waxay barwaaqadii gaarsiisay geed weyn oo barday ah miliis aan quranayay oday wuxuu sameeyay ilmihiibu qof walba kor u qaaday iyo islaanta geedka dhaliisu saaray asagoo ka daba fuulay bardagii baa la gurtay bardigii markii laga miraha bardadu waa moos oo kale hadda iska baysi culayska wax si badanaa markii hore aad si dhib la geedka u saaray markii la soo degayay tala waa cadaatay wuxuu shirma intaana soo dejin kartaa gudun buu qaatay wuxuu laanta ay fuushayiin la soo jar markuu u kala bixiyaba waxa uu soo cadaanaysa hadday soo daataa in mid noqonayaan markii uu ka daayay culayskii baa sugay khilaafkaygu marka waxa weeye khilaaf waxa weeye hadda qolo hoos guud kala baxayso ay u muuqanayso in galmudug burburayso markay ay xaraystaanna haddana guudta la soo baxayo anoo huba dadkii ehelka u ahaa haddii culimo ahaan lahayd hadday siyaasiyiin noqon lahayd hadday nabadoon ahaan lahayd hadday waxgarad ahaan lahayd in ay u gurmadeen oo ay faraha ku hayaan haddana waxaan ciidayaa in ay galmudug ka weyn tahay wax mara faraqeed lagu qaado oo dana gaara lagu oofsado ma burburi doonto mana leexi doonto dan gaara lagu fulin doono waxaan u rajaynaynaa guul iyo barwaaqo iyo in lagu tago hay'adaha dawliga ah ee meesha ka jira hay'adaha dawliga oo dhan ayadana waxaan u rajaynaynaa inay si wada jira ay ku dhamaystaan xilliga u harsan waan asagu badnayn kaasoo aan u rajaynayno inay si sharaf iyo karaamo leh ay u dhowraan maxaan ku dhahdaa haddaan sida taas aan halkaas qodobkaas aan ku sii xajiyo waxaan kaloo asagana leeyahay uu si kale u rogo jaaliyadda galmudug walaalaha soomaaliyeed ee martida ah ee nala jooga iyo ama si kale ha noqoto ama soomaalida oo dhan ha noqoto siyaasadda soomaalidu maanta waxay ka gudubtay jufaysi beelaysi iyo in hoos wax loo eego waxay noqonaysaa inaan sila loogu kala qaybsamin inaan jaalidu kala qaybsamin inaan dhig jalaq loo siinin qof dan gaara leh midnimada guud ciddaan ilaalinayna waxaan leenahay adigoo barakaysan na dhaafa oo na dhaafa oo na dhaafa hadday jiraan shakhsiyaad haddii ama daalan ama hawla ka dayacan yihiin oo sanadkii iyo bilaha u haray dawlad aysan sugila geedkii aan sheegay yaysan noqonin oo aysan geedka jarine hay is-casilaadda waa dimuqraadi ha la is-casilo ha la tanasulo laakiin ma yeelayno in geedka guudta lagu dhufto qofkii caajisaaba taa waa ka digtoonaya jaalidaha soomaaliyeed maanta waxaa ka dhacay banaanbax aad u weyn waddankan aan joogno markii baahi yarna qabato waa ogtihiin waa isku soo yaacaynaa Soomaali baanu nahay laakiin markaan barwaaqayno reer hebel iyo gobol hebel baan nahay arrinkaas waxa weeye waa cilada nala kugu dawgalay ee dalkayga ay ku ilownay waxaan leenahay waxa jiri jiray cid boqortooyo meel degan oo nabadoo meel degan ayaa boqor ka dhintay boqorku wuxuu ahaa boqor marka laga boqo oo kal adag markuu dhintay nin waliba galaan soo qaatay wuxuu ana meesha xukumayo arrinkii markii lagu heshiiyay ayaa nin khamiis jeexjeexan soo wata oo koofidu ka jeextay oo gaajo badan haysa ku soo baxay dadka shilay waxa ninkaas aan boqornimo u dhiibanahay ninku dadka deegaanka ka mid ma ninku loo yimid khamiiskii waa laga bedelay kabii waa laga bedelay koofida loo qubeeyay cidiyaha ka baxay gaajo awgeed qof neef waa gowracaan cidiyaha laga jaray timaha laga jaray waa la barwaaqeeyay dharkiiba waxa lagu xiray meel maqsiina waxa boqortooyada waxa lagu shaqeynayaa caawa laga bilaabo boqorkii meesha la tahay
waxaad adaa maamul hal kaliya shuruuda maqsiinkaas ilaa la furin maqsiinkaas khamiiska wasaqaysan ku jiraan kaaga bedeli cidiyaha haddaa furta boqortooyada waa dhac dalka watani wa bini aadamka waxaa laga kari waayay maqsiinkan albaabkiisa ka dul markuu cilo ka helaba wuxuu rabaa inuu furo galabta maalinta dambe waxaa loogu yimi asoo maqsiinka dhex fadhiyo khamiiska rogrogaya jahjahna dadana waxaa boqortooyadaadi waa dhammaatay khamiiskiisii xiisa waa loo laalaa waxaa la mid ah dadka yaga kan soomaalida ilaahay ka dhigay haddii markaan karameel waa aragtay marka la ismarayaa talisma oo xaggagiya ka baxda soo maayo baawur markaad aragtid isha saas oo la laacisaayo qof Soomaaliya maray oo islaamaysa hadhowdi markii la barwaaqeeyo qof waliba uu meel nabad helo wuxuu leeyahay tahay markay ciriiriyoon tahayna waxa weeye marka albaabkaas qamiiskaas jahjahana qabyaalada ah ee kala qeybiyay ee kala dilay ee hadda albaabka furayno aan iska dayno hadda reer galmudugnaana albaabkaas daqaro badan baa u geysanay aan iska dayno albaabka yala furi waxaan u malaynayaa hadalka waa badiyey wixii delqaafa ee af Soomaaliga aan ku delqaafo asaga waa ka cudur daaranayaa maadaama meesha aan joogno ay qurbo tahay maadaama af Soomaaliga goor hore igu dambeysay maadaama haddii ilaahay ku idmaayo inkastoo garku cadi yahay haddana dhalinyaro inaan iska dhigaan rabo maxaan ku dhahdaa taasoo ay kaga mahadcelinaya hal ku dhiga xafladda tani waxa weeyaan hal nin abwaana nin waxaa laga sheegay liyaa suugal Cabdullaahi abwaanada Soomaaliyeed ka mid ah iyo barigii musuqmaasuq iyo dawladda musuqmaasuq riwaayad buu sameeyey la yiraahdo magaalo joognuxuu barkaad waxaan ka xasuustaa nin baa shaati saa u taabay waa asl dunti sana qaana adana inta iisiitid iska sii dabayso marka maanta siyaasadda Soomaalida iyo dawladnimada Soomaaliya waxay maraysaa in adeero la oran maayo shariifka madaxweynaha dhamaysto la oran maayo caalim madaxweynaha dhamaysto la oran maayo faloor madaxweynaha dhamaysto la oran maayo sheekh waxa leeyahay asl meesha ayaan baa joogtay iisi was ka sii tag أنا بركة شاطئ أصلي قاهو لكرسيبنا يوصل نقصين إنها نقصين حتى صومالنا إنها من الإسلام ولي بالتالي هالدبدة وحصوها تودك على الجوب تاني وحل إلى هذا وودك ويل بحسن دنيا صارت نك حكومة وأن كل شيء إيست أفريقيا أو أفريقيا أو كياتيا ديمقراطية للشيء وهالك إيك جارين هالك هسا إيك غفلن البحث ما ينور السنة واحد إيك غفلن قابك حنانك هيبدأ عليهم يقرح ذي كم وقت البحث ما لتشوفتن ayaa laga dheehan karaa lafdhabar baa marka waxa noqon kartaan inaad aruurisaan Soomaalida hadda waxaan arrinkaas aan aaminsanahay raggu waxa weeye waa ku fashilmeen waa ku daaleen hablaha inay u istaagaan waan aaminsanahay sida ayuutada ama hagbadaha la isku daro inaysan qabiil ahayn ee la isku darsado xaafad raggu isku darsan karo jufayr isku darsan karto laakiin adigu waxa isku darsan kartaan هذه هبل الماء قال ما قرأ خليته سياسة هكبت خديقة أو شيء هكبت سكون درو مال وبت كل بتان ذلك الله وريجا وهي عقل اللي يكون تاجرا يعني شرفت أسي كرام الناس بحد وين لا يقول حد بدن له يا هبلها يا قلمذو فج أنا هبلف عنها يسل وروح بيش وحن لا يا أذكر بالله هذه كوربت كنا قضاء هدي له كل هالكل جينا وحنا يا سومالو دمان ربتي واحد ربطا واو ديمانينا نكيدا يلو أرك نكيدا يلو مقال سوماين سومالو دمان ربتي واحد ربطا واو ديمانينا سومالو هنولات Soomaalidu hamidow Soomaalidu asraacdo calankay waa soo noqdo gobonimada hal gaaro kelmadu waxaan leeyahay xanku ha yaraado isxasho ha baabado arrin hoosaad ha dhamaato doqonnimada Allah naga koriyo guntiga diisha la iskaga dhigo shidaal adag baa la soo gudbay shidaal siyaasadeed baa jira
yaan loo jixin yaan loo qaybsamin yaan wax dhegta laydinkugu sheegin yaan jufo laydinka dhaadhicinin soomaalida raadiya ha u istaagnina inaad adinku iskala qaybisaan waa inaad doontaan soomaalida calanka qaybta ay ku leedihiin waa ogtihiin gobonimada qaybta ay ku leedihiin waa ogtihiin taariikhda ay leedihiin waa ogtihiin dhulka ha dhiginina yaan isku sheegin intaasi waxa weeye olana ka yimid oo idin leh guul iyo barwaaqo gobonimo walnasati aad iyo aad u mahadsan yahay markaana qalbi fiican aad iyo aad u mahadsan yahay Axmed Shire waxaan filayaa in aad ku qanacdeen khudbadaasi qiimaha badan ee dhinacyada badan taabanaysay isla markaasina ay ugu tahay qiiro wadaninimo asagoo hees wadaniya halkan ka qaaday Axmed Ruux ayaa waxa ay ugu tala gashay flower inay guddoonsiiso runtii aniga caawa waa habeenkii iigu horreysay inta aan Minneapolis ku noolaa barnaamij noocaana oo goboleeda aan kasoo qayb galo runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay goboleed lama kulmin waxaan la kulmay Soomaali dad ah oo Soomaalinimo dhiiggiisa ku jirto oo raba inuu isku keeno Soomaali oo doonaya Soomaali inay mid noqoto waana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay fanaanada Soomaaliyeed baan ahay waan ku garab taaganahay anoo ku hadlaya gabdhaha sharafta leh ee marwooyinka macmacaan ee xafladan soo qaban qaabiyay anigoo ka guddoomay waxaan guddoonsiin doonaa anoo sharaf iyo wanaag ugu guddoonsiinayay kalgacal in laga guddoomo ubaxan Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha israaciil geesiyada Soomaaliyeed ilaahay ha garab galo ninka kan waxa weeye wuxuu ka hadlay mabdigiisa aad iyo aad baan ugu faraxsanay alxamdulilah haddaan helno dhowr nin oo isagoo kale ah waddankayga waa xiroobaya waa mahadsantii Soomaaliya ha noolaato Thank you.